kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada janalka kaaha bulshada. war degdeg ah oo dhawaan soo gaaraya waxa uu sheegayaa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble inuu shaqo joojin ku sameeyay agaasimihii hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin waxaana si ku meel gaar ah loogu magacaabay Saraakiil Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hore xilkaasi laba jeer u soo qabtay. warqadda ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa u qoran sida tan markii uu arkay qodobada 97 ee dastuurka meel gaarka ah oo qeexaya awoodda xukuumadda Soomaaliya markii uu arkay qodobka 10 ee dastuurka kaas oo ka hadlaya in awoodda dowladnimada aan loo adeegsan karin in lagu bahdilo ama lagu dhibaateeyo karaamada aadanaha markii uu arkay qodobka 13 ee dastuurka oo ka hadlaya xaqa nolosha markii uu arkay qodobka 127 ee dastuurka ee ka hadlaya in ciidamada dalka Soomaaliya dhaxad ka noqdaan arrimaha siyaasadda isla markaasna aysan ku milmin waxaana uu sheegay ama lagu sheegay warqadan in agaasimaha hay'adda nabad sugidda uu ku dhex milmay siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka oo ah arrin xasaasi ah markii uu tixgeliyay go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee baarlamaanka 10aad hortiisa uu kala wareegay ra'iisul wasaaraha hoggaanka doorashada iyo amniga markii uu garwaaqsaday in warbixinta hay'adda nabad sugidda ee ka saartay kiiska Igraan Tahliil Faarax ayna ahayn mid lagu qanci karo markii uu arkay warqadda sumadeeda tahay ta isbaaro ha sana qa isbaaro ha da isbaaro eber hal afar isbaaro 22 ee uu soo saaray agaasimaha guud ee NISA taas oo muujinaysa sida uu madax adeegay in uu fuliyo amarkii ra'iisul wasaaraha ee soo baxay 4 bishii 9 ee 2021 ee lagu faray in uu 48 saac gudahood uu warbixin dhameystiran oo lagu qanci karo uu soo saaro oo ku aadan arinta Igraan Tahliil markii uu tixgeliyay duruufaha doorashada dalka uu ku jiro danta guud ee cadaaladda ilaalinta sumcadda hay'adda nabad sugidda qaranka iyo ka hortagida khatarta amni ee ka dhalan karta wuxuu xeeriyay qodobka koowaad ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu shaqada ka joojiyay agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir qodobka labaad waxa si ku meel gaar ah loo magacaabay Saraakiil Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe qodobka saddexaad waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha kala dhaxeeya wada shaqeynta agaasimaha guud ee cusub hay'adda sirdoonka in ay gacan siiyaan qodobka afraad waxaa lagu amrayaa agaasimaha shaqada laga joojiyay in muddo 3 maalmood gudahood uu xil wareejin ku sameeyo isla markaana xil ku wareejiyo agaasimaha cusub ee la magacaabay 5 xeeryaalaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa la farayaa in baaris rasmi ah oo dhameystiran uu ku sameeyo kiiska Igraan Tahliil Faarax kadibna horgeeyo maxkamad sharci ah oo awood leh qodobka 6 xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu ra'iisul wasaaraha saxiixay oo warbaahinta la wadaagay